بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهرين إلهي بينو مهد نقينا تبارك وتعالى مرلباتك وحنو مهد علينا عيد دبدب سهان مامولك مقالة بربراء قدومين قدوميها أهنا دوق الدقمدة حقيا فلينتا أرهنهانتي كعوين عيدن كدبدب سكرانك جمهورية الصوماليلاند iyo magaalada barbaraba ka siiyay sidii uu hirgeli lahaa una hana qaadi lahaa in magaalada barbara ciidanka dibdamiska ay howlgal ka sameeyaan marka run ahaantii sidaad hore uga warqabteen magaalada barbara iyo maamulkeedu waxay dusha u riteen inay dhaqaale ku bixiyaan oo ay isbarbar taagaan sidii barbara u yeelan lahayd fire brigade kaafiyo oo ku filan arintaana ilaahay mahadiisa ka sokow maamulka ayaa leh marlabaadka sagaalkii bisha waxa magaaladan soo gaadhay unit ka kooban ciidanka dibdamiska qaranka iyo gaadiidkoodii maadaama oo kooxdii magaaladan rasmiyan loo soo xulay ee dhaqaalaha badan iyo maaliyadda badan ku baxay tababar ay galeen isla markaana gaadiidkii halkan joogay dib u habeyn lagu sameyn doono ayaa halkan waxa soo gaadhay unit ka tirsan ciidanka dibdamiska qaranka oo uu hogaaminayo taliye maxamed xasan axmed maanta waxa aanu halkan lagu daafuri doonaa isaguna nambarkii yeedhmada degdega ah ee bulshada degmada iyo deegaankuba markay u baahdaan inay xiriir toos ah la soo sameeyaan dibdamiska oo ay gurmad u baahdaan ay ka soo wicilaayeen arintaana run ahaantii aad baan iyadana uga mahadnaqaynaa in maamulka degmadu oo ciidankaasi si fiican oo habaysan baahidoodiina ugu dhameystiray kooxdan imiga gurmadka ku sii jirta isla markaana waxyaabihii kale saboodka oo ahaa shaqada gudagalkeeda ay maalin walba wax ku darayaan heeganna ay u yihiin diyaarna u yihiin ay u heelan yihiin inay arrintaasi gacan weyn ka geystaan run ahaantii taariikhda qori doonta iyagana adduunyadana magac baa ka hadha umadnimaduna inay saa wax iskugu tashatay qaran ahaan wax loo wada qabsada ayaa muhiima markaa mudane maayar run ahaantii dee bulshadii ku soo dooratay ee codka ku siisay kaalmihii ay kaa filanayeen mid ka mid ah ayuunbaad buuxisay imigana waxaan jecelnahay annagu ciidan ahaan inaad u baaqdo oo hanaankay noola soo xidhiidhayaan iyo 24 saacadood waxay u baahdaanba in loo diyaargaroobo u diyaariseen iskaashigaana anaguna aanu 100% inaanu ka soo baxno aanu diyaar u nahay alxamdulillaah rabbil caalamiin gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada agaasimaha guud ciidanka dibdamiska qaranka taliye maxamed oo ah taliyaha ciidanka dibdamiska qaranka ee gobolka askarta iyo saraakiisha kale ee ciidanka dibdamiska qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland nala joogta dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa farxad labaad runtii waxa farxad weyn oo ahayd inaynu muddo aad iyo aad aan fogeyn oo dhaweyd aynu xiriir yeelanay wada shaqeyneed islana fahmnay inaynu qarankan u wada shaqeyno inaynu wada jeesano islana qaadanay in ciidanka dibdamiska qaranka qayb laga dhigo inay gobolkan ku soo biiraan waxa kale oo farxad ahayd in tababarkii u dhamaaday in uu u socdo dhalinyaradii reer saaxil xulka iyo imtixaanaadka ku timid inay ciidan ka mid noqdaan tababarkana si fiican ugu socdo iyo inaynu isla markiiba ka jawaabnay dhammaanteen in horintii ugu horeysay ciidanka dibdamiska qaranka ay yimaadaan magaalada berbera oo shaqada ka bilaabaan xaruntii dibdamiska iyo gaadiidka iyo agabkiina ay la wareegaan runtii dhammaanteenba guul bay inoo wada tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maxay tahay ciidanka dibdamiska qaranka iyo janankooda iyo madaxdooda oo dhan oo runtii aanu kala kulannay inay ka go'an tahay inay qarankan u shaqeeyaan annagana waxa weeyaan farxadeed waxa weeyaan cid kasta oo qarankan u shaqeynaysa inaanu barbar istaagno inaanu la shaqeyno in dabkii baxaya dab lagu qabsada inaanu maxay tahay dhinac ugu soo wada jeesano maxay tahay taabagalka kor u qaadista hay'adan cusub oo runtii ah ciidanka ugu dambeeyay qaranka ee la abuuro laakiin maanta wax qabadkooda la ogyahay reer berbera waxaan ugu bashaareynaa in 24 saacadood ba telefoonada la siin doono in ay furan yihiin ciidankuna ay maxay tahay 24/7 ay shaqeynayaan haddii alla yiraahdo anaguna aan baak gareyn la joogno waxaan ku soo dhawanayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada oo nambarada inoo sheegi doono reer berberna kula dardaarmi doona iyadoo magaalada berbera marka hore magaalo baxay tahay oo runtii gacan weyn ka heli doontaan marka insha Allah dabka la dagaalamaysan marka hore Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala marka labaad
dhammaan waxaan halkan marka hore mahadnaq iyo bogaadin ka siinayaa dhammaan ciidanka qaranka oo Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay oo dhan gaar ahaan ciidanka degdemiska oo runtii bulshadeena dhani cidaan ku saxanaa oo qarankan ku leedahay oo dhammaan ciidamada kala duwan waxaan wada ognahay maanta in maalin holiday tahay muwaadin kastaaba wuxuu ku faraxsan yahay lana faraxsan yahay gurigiisii iyo carruurtiisii kuwana waxay inoogu soo heegan noogu jiraan in adna faraxdo iyana ay ku ilaaliyaan cadawga ka ilaaliyaan kadibadka imanaya ka gudaha ku jooga iyo wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keenay dab nagu soo kordha ama wixii kale ka hortaga ma aha ciidankan qura diminta dabka qura ma aha waxay qabtaan shaqo badan ay qabtaan oo ay la qabtaan maxaa ku raada arrimaha bulshada ee ka howlgalaan runtii dareen gaar ah noo leedahay maanta anaga waxaan arkaynaa midhihii baan arkaynaa ciidan dhisan oo u diyaara saacad walba oo aan fasax lahayn oo aan holiday lahayn oo aan ku xisaabtamin lagu seexdo iyo adnaad ku seexantii la sheegi jiray loo jiray ninkii isaga lagu seexan inuu yahay waxaan taliyaan aad kula wadaagayaa runtii farxad gaar oo ah ciidamadeena marka tababar la siinayo inta badan waxaan ku aragnaa markii noo yimaadaan ciidamada ajnabiga ah waa ciidamo dhisan weeyaan waa ciidamo aan ahayn in cadawga dilaan oo quraan ahayn waxa ku jira electriciankii waxa ku jira makaanigii waxa ku jira dhakhtarkii waxa ku jira ustaadkii waxa ku jira nijaarkii inay maanta ciidamada dibdamiska ee qaranku leeyahay gaar ahaan waliba kuwa degmada nala jooga iyo kuwa dalka ku hoos sugan ayaan runtii ciidan dhisan oo inta uu ciidan leeyahay leh oo aan ma fadhiyo yaalaan ahayn ninkii ustaadii waa kaas waa dhisaya waa wadaa ninkii nijaari waa wadaa electrician waa ka shaqeynaya meesha inaan madoobaanin kii makaaniga gaarigiisa ku hoos jira dhammaantoodna waxa kulminaya dibdamiskii baa kulminaya markaan ka imaado mahadnaqa faraha badan leh waa in qarankeenu tanaado ujeedada la leeyahay mar walba leenahay inaan qaran guuleystaan noqono waxaan bulshada reer Berbera ugu baaqayaa runtii iyadoo ay bulshada isku xidhan tahay oo ay marka horeba ciidamada booliiska iyo dhammaan hawlwadanada dowladda hoose oo dhan ay ka midaysan yihiin fiyaasada gacanta ku sitaan oo si fudud dadka markay u soo gaarsiiyaan qofka garanayaan loo heli karayay dibdamiska markaba haddana inaad ka maarantay imika inaad hebel baadi doonto ama telefoon ku doonto oo toos soo garaaci doonto madaxa xarunta dibdamiska degmada Berbera ay leedahay oo aad soo garaaci doonto 990 insha Allah taala waxa ka reeban numberka wax kasta oo dheeldheel ah waan maleynay waan ku soo khaldamay intuu way ka reebantay sababta waa ciidan wuxuu diyaar u yahay in adigu ku soo gurmado oo waxa ka reeban in lagu dheeldheelo ciidanka ama lagu ciyaaro waxa ka dhalanaya faldabiyad baa ka dhalanaya cidii soo garaacdana waa la garanaya laakiin waxaan ugu baaqanaa bulshadu inay isticmaasho lambarka 990 ama 990 oo mobile kasta oo gacanta ku siita si fudud ugu soo garaaci doonta hadii Ilaahay ka dhigo waxaan insha Allah dadka reer Berbera aan ugu baaqayaa oo bishaareenaya inaynu insha Allah waqti roobaadkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadiisa bayn wax walba ku helinaa waqtigii roobaadkii oo waqtigii ku haboonaa ay naqanaan ahayno hadana dalkoodan ka dacaya insha Allah waxaan rajaynaynaa in Berbera cimiladeedu iyo isbedel doonto oo hadii roob badan helno inaynu iyadoo sanadka raxmadii dacday ay green tahay oo magaaladu wali cawskiin taa leeyahay oo aan midabkiisa isbedelan haddana dhibicina dul yaallo waxaan ku soo ururinayaa waxa ku diyaara ciidankii dibdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan kuwii gobolka Saaxil gaar ahaan kuwii degmada Berbera bulshaduna soo dhaweyso ana la shaqeyso iyadoo reer Berbera kulay caan ku yihiin oo aan dibdamisku aan culays ka dareemin xarunta lama shaqeeyo lama garab galo lama hor cararo waa loo baniyaa jidka marka dibdamiska rato hadda istaado shaqada la qabo waxa luminaysaa awoodii ciidanimada luminaysaa oo qofka access ka u lahaa oo qaban karay inuu wax qabto aad